السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabteyda qaaliga ah. maantana waxaan idin wadaa alaabtaneet. waxaan rajeynaa inay la sameysaan insha Allah. waa wax aad u fudud haddana aad u macaan, quruxdana indhihiina idin macallin ah. basala inta kusoo qaleeyay kadibna waxaan kusoo daray tuun, saliidda aad qiyaasta jeceshaha ka dhigo. si fiican aa maaragtay basasha u gaduudiyo kasto. tuuntana waxaa waaye markay saliiddiis arkaan carafteeda dhan aa soo baxda, ma fahanteen? marka asxaabteyda qaaliga insha Allah waxaan rajeynaa inaa ila tijaabisaan. waxaan kusoo daray bay leaf haddaa haysanin muhiim ahan, laakiin caraf zaaid haysiisaa raashinka. haddii aadan haysanin waa iska dhaafi kartaa, basashaadii toontaada kugu filan. asxaabteyda qaaliga waxaan kusoo daray hilib digaag. meesha digaag isticmaala ari waa ka isticmaali kartaa, adi iyo dooqaada waaye. hilibka kusoo daray adi hilib kiili iyo bar camal waaye. kadib waxaan kusoo daraa barbarooniga oo budada ah. waxyaabaha aan isticmaalayo wixii aan ku oolin hore uga soco, ma fahanteen? waxaan kaloo kusoo daray xawaajiga oo digaaga loogu talagalay oo chicken masala wixii aad u taqaanid. kadib waxaan kusoo daray filfisha waxaa waaye ani wax kasta waa ku darsadaa, waayo caafimaad way leedahay, carafna way leedahay, dhadhan macaan cunada way siisaa. waxaan kusoo daraa xawaaji aan guri ku samaystay. sidoo kale waxaan kusoo darayaa waa ila arkaysin indhihiina idin macallin. waxaan kusoo daraayo qaadadaa dhex marinaya insha Allah. asxaabteyda qaaliga ah, dabka hadda wuu sareeyaa, meel sare u joogaa, laakiin hadhowtu waa u gaabinayaa. digaaga biyo dhan ku karinaya, biyo badan uu soo saaraya, kuwaasaa ii karinaya. waa daboolayaa, dabkana dhexdhexaada uga dhigayaa. 3 daqiiqo kadib insha Allah isla fiirinaynaa. waa kana biyuhu soo saar, waa arkaysiin biyo badan uu gadaalna ka soo saari doonaa. waxay ku xiran tahay weelka aad ku karinaysid. haddii weel culus uu yahay dabool dhab ahna aa saartid. digaagana markaas aad baraf ka soo bixin oo qabowgi ka baxay uu maaragtay caadi yahay, temperature-ka guriga caadiga uu yahay. haddaa daboolka u dheereyso, dabool fiican aa ku dabooshid oo geesaha hawo ka bixinin, waxaan ku dhahay biyo badan oo saaraa, biyihiisaasaan ku karsanaysaa. waxaan kusoo daray maraq digaag. haddaa jeceshahay iyo haddaa neceb tahay waxaa waa dooqaada ka ciyaar. cusbaa ku bedelan kartaa, waa dareemaysaa. asxaabteyda qaaliga ah, digaaga asoo qabow haddaa dabka saartid calashaan biyo fiican ma kuu soo saarayo. haddii maaragtay laakiin uu si fiican usoo dhaqday, banaanka uu cabaar yaalay, biyihii aa kusoo dhaqday iyo qabowgii gudaha hoose kugu jiray ayaa kasoo baxaya. markaa dhahdo dab gaabanaa ku karinaa, dab dhexdhexaad ah, waa ujeedin waxaasoo biyaha oo soo saaray. laakiin haddii aad biyo ku dartid asagiina dhexda biyo uga jiraan, digaag waxa la dhaqay camal uu ka noqonaa. biyahaas oo dhan asay kasoo baxayaan, ayaga lay ku karinaa, haddana asagaa gadaal u cunayo, ma fahanti? marka waa ujeedin ilaa adiga 30 daqiiqo camal aan digaag ku karinaa, dabka dhexdhexaada uga dhigaa. daboolkan saaraa. haddii aad u rabtid marka digaaga marka ugu dambeyso inuu wax shiilan camal kuu noqdo, hore waa usoo geli, hadeerna waa soo geli doonaa insha Allah. markuu kuu bislaada isdhehaysaa daboolka ka dhaafaysaa, ma fahanteen? kadib qalays iyo shiil kuu bilaabaa haddii Ilaahay idmo. marka waa arkaysiin sidaa u sameynaa asxaabteyda qaaliga. digaag haddaa biyo isaga kariso asaga dhan wuu kala daadanaa, macaanka ka tagaayo. marmarka qaar haddaa wax yar karinaysid oo biyo badan kuu soo saareynin, waa inaa u baahato waa laga yaabaa, laakiin aniga ma u baahdi badanaa. marka waa kana adiga 30 daqiiqo camal aa karinaya. 30 daqiiqo adinka video waa ku hamaansanayseen, waa ka daaleysiin. basal iyo waxaan kusoo daray 1 xabo basbaas ah. waa idin soo gaagaabiye videoga, waxaa arkayseen biyo gadaalo u cabay. intaan yartaana wuu laqayaa. bardhadana soo shiilay, waajibsi aan soo shiilay adi oo safaraan yar soo mariyay. kadibna waa kusoo shubay. alaab culus oo kaale iska aragay noqonaysaa. bariiska rajeynaa inaa insha Allah ila karisaan. bariis aad u fudud oo qurux badan waaye, bariis dalac bilaash. alaabtaan taa lagu cunaa qada ama casho, waxaa jeceshaha ka dhigo. waa wax aad u fudud, indhahana u roon. marka hadba jadwalka in la bedelo way fiican tahay oo hal nooc la karinin. asxaabteyda wax yar isku huuriyo basashii iyo bardhadii iyo digaagii si ay isku fahmaan. haddii aad rabto cabaar badanaa daboolka ka qaadan aa huurin kartaa. daarta bardhada digaag inuu ku yar gaduudmo. marka waa kana haddana digsigaana bariis ku karsanaynaa. basasha iyo saliidda si fiican isugu soo shiilaa ilaa xad. intaa jeceshaha adi shiilo, ani waxaan jeclahay inuu gaduud ama madow camal basasha soo gasho. kadibna waxaan soo shiitay yaanyo miroley ama yaanyo babalaar, midda aad haysatid soo shiido. kadibna waxaan kusoo daraa shiishid oo 2 qaado ah.
asxaabteyda qaaliga ah waxaan ka codsanaa insha allah inaa comments qurux badan ooga tagtid ra'yigaada asxaabtaada iyo saaxiibadaadana aa la wadaagtid videoga share dhahdid sidoo kale inaa like saartid aad ay muhiim u tahay iloow inaa like saartid videoga insha allah waa kana cusbaa kusoo darsaday sidoo kale waxaan kusoo darayaa xawaaji bariis xawaaji la'aan lama karsado maahan oo muhiim waaye qof kasta way ogtahay Soomaali haddaan anagii xawaaji waxaa ku dhaawadaana kala celiyo filfilaan kusoo daray master filfilaa lii dhahaa ani waa ogtihiin dadka qaar filfisha maxaa ka wadaa ay dhahayaan adi haddaa jecleen waa iska dhaafi kartaa hadii kale ila tijaabi bariiska waxaa kusoo darayaa karooto iyo digirta cagaaran haddii ku oolina break ha u qabanin haddaa karootada bis haysatid ku darso haddaa digirta bis haysatid ku darso haddaa labadaba haysan ka soco waxaa waa adiga qudraday kuu tahay laakiin laazim ma ahan sidoo kale aniga ma aadna arkaynin mara digaaga kusoo daray sababtoo ah digaag bariiska maraq caadi ma u hayay marka mara digaaga qasab waaye haddaan necebtahan cusbada u badso asxaabteyda qaaliga ah si fiican marka yaanyada usoo shiilantay digirtiina wax yar iyo karootadiina aan haf siiyey bariisku wuu ii dhaqan yahay biyahana zaaid ay u karkarayaan halkii la camal bariisaa kusoo shubay kadibna waxaan ku dhaha bariiskii cabaaraa shiilayaa biyuhu aad u karkaraayo kuuleyl ah kusoo shubaa insha allah aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo waqtigiina qaaliga ah dhiirigelintiina waxay ii tahay wax weyn walaahi kommentidiina aad ku quruxda badan shukran jasaakallah khayr biyihii oo karkaraya kusoo daray videoga inuu dheeraado ma idinla tahay anoo nacbaa videoga inaan ku caajisiyo daqiiqadaha muhiimka bisa inkaga soo qaada sababtoo qof kasta wuxuu karin yaqaanaa laakiin muhiimadu waxaa waaye fikirka yarka ay soo saacidinaysid marka cusbada isku hubinaya dhadhankeeda in isku fadhisay iyo in kale waxaa korka kaga soo shubaa bariiska basal ah soo shiilay oo ah si fiican usoo gaduudiyey kadibna hal xabo oo bay leaf ah kor ka saaraa sabiiba haddaa haysato ku darsan kartaa basasha xoogaa bariiska way noo gaduudina carafna way siinaysaa haddaa sabiib haysatid sidoo kale kusii darso adi iyo dooqaada ma fahantay wixii ah haysatid adi halkaas xabo bay leafka kor ka saaray kadibna aluminium foil dhakab ku siinaynaa bariis oo dhan qishkiisa waxaa waaye markuu bislaado kadib haddaa haysan xataa aluminiumkaas buug caadi waraaqdiisa intaa soo jaratid ama kartoon ama wixii adi haysatid aad dhakab ku siisid kadibna ma aragtay aad daboolka u dheereysid haddaa aluminiumka haysatid ku daboolatid dabka meesha ugu hooseysa aa u geysid 30 daqiiqo aa steam gareysid bariiskaas biyaha dhan intay ka dhamaadaan oo dhuuqo oo asaga dhan furfur noqdo wax kale kugu soo baxa insha allah waa kana bariisku noo bislaaday digaagii waa noo soo guray basbaas shinya kor ka saaran ka sheekeeyahay asxaabteyda qaaliga ah haddaa ilaa intaa ila daawada videoga waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay rajeynaa inaa ila soo tijaabishaan insha allah aad iyo aad ugu mahadsantihiin dhiirigelinteena waqtiga isku ducey jirnaa la gaaray ilaahay dembigeena iyo dembi waaridkeena ha dhaafo wadankeena ilaahay nabad ha naga dhigo awlaadana ilaahay ha noo xifdiyo waalidiinteena allaha u naxariisto muslimiinta meel kasta u joogaan qofkii xanuunsan allah caafiya kii dhiban allah ka qaado waxaan kaga sii tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi